daawadayaal waad salaaman tihiin. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tala iyo Tusaale uu maanta marti noogu yahay Cabdulaahi Barakaad. Ku soo dhawaaw Cabdulaahi barnaamijka. waa dhawahay. daawadayaal barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay arrimaha bulshada qeybaheeda kala duwan. Maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa dhalinyarada xabsiga ku jirta. Waxaynu ugu gol leenahay inaan barnaamijka ka bixino talo iyo tusaale dhibaatooyinka markaa jira, waxyaalaha u sababa inaan soo bandhigno si markaa loogu helo talooyin kala duwan. aan u gudo galo barnaamijka anoo markaa Cabdulaahi weydiinayo hadduu Ilaahay yiraahdo inuu naga siiyo warbixin gaaban ama faalo qofka uu yahay Cabdulaahi. magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdulaahi Nuur Cusmaan. in badan oo kamid ah ummadda Soomaaliyeed waxay yaqaanaan Cabdulaahi Barakaad. runtii ma ahan su-aal sahlan moogta marka lagu yiraahdo cidda aad tahay bal isa sheeg. qofka aad tahay faala ka bixi. cidda aad tahay qofka aad tahay dabcan aniga waxaan ka shaqeeyaa howlaha bulshada ama jaaliyadda ama community-ga hadda muddo la dhihi karo ilaa iyo 8 sano iyo xoogaa. inta badan marka waxaan caawinaa dadka faamilada, caruurta, dhalinyarada oo ay kamid yihiin dhalinyaro xabsiga ku jirta. waxaan la shaqeynaa dowladda hoose ilaa iyo dowladda dhexe. haddii ay noqon sidoo kale waxaan la shaqeynaa hay-adaha kala duwan ee dowladda ay kamid tahay hay-adda caafimaadka, booliiska, waxbarashada, iskuulada iyo ururada kala duwan ee ka shaqeeya howlaha bulshada. haddii ay ahaan lahayn kuwa Soomaali ah iyo kuwa aan Soomaali ahayn. sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha ama home office-ka, manaha looyarada, qayb kasta oo howlaha bulshada kaalin ku leh waxaa naga dhexaysa ama dhex martay wada shaqeyn. howlo kala duwan marka oo voluntary ah oo fara badan shaqada aan qabto ka badan ayaa jirta. urur la yiraahdo Access for Support and Development Center ayaan director ka ah oo hawsha qabta. ururo kale oo manaha howlaha ka shaqeeya oo aan mataqaanaa ama boardkooda amaba golahooda maamulka xubno ka ah badan way jiraan, iyo guddiyo badan oo aan ka ahay xubin oo la taliya arrimaha bulshada. haddii noqon lahaayeen booliiska, dowladda hoose, qaybta waxbarashada, sidoo kale iskuul hoose dhexe ayaan waxaan ka ahay chair of governors. marka manaha howlo fara badan oo xagga bulshada ah ayaan ku dhex jiray adigu sanooyinkii lasoo dhaafay. waxaan isku dayay inaan u kuurgalo anigu nafteeda hawsha uu hayo. waxaan ka codsaday inaan isu raacno xabsiga uu markaa 6 sano uu soo booqan jiray, inaan mar tago saan u ogaado baaxadda ay la eg tahay hawsha uu qabto. xabsigaan tagnay waan soo booqanay, waxaan arkay inuu wato furo qaasa uu iskaga gudbi karo qeybaha kala duwan ee xabsiga. waxaa ii soo baxday in hawshaasi ay tahay howl loo baahan yahay, dowladdana ay sharci ahaan ogoshahay dhalinyarada la xukumay in loo yimaado, la wacyigeliyo, maadaama uusan xabsiga ahayn mid lagu waarayo abidkii uu qofka markaa kasoo bixi doono. loo baahan yahay in wacyigelin iyo talooyin la siiyo. marka haddaba waa howl loo baahan yahay. ciddii doonaysa inaa iyaduna soo booqato xabsiga ay soo fiiriso, talana siiso dhalinyarada ku jirto, Cabdulaahi way la soo xiriiri karaan. isagaa markaa u sheegi doona sida ay ku suurtageli doonto ama ay waxyaalaha looga baahan yahay oo aanan saa usii weyneyn. aan usoo noqdo waxaan jeclahay inaan Cabdulaahi Barakaad ku weydiiyo marka hore dhalinyaradan xukunada kala duwan ku dhacay. tabcan way kala duwan yihiin. waxaa dhici karta in xataa qofka uusan dembi gelin inuu dembi galay. waxaa dhici karta in dagaal aana macno lahayn inuu xabsi ku dambeeyo, isu bedelo. waxaa dhici karta in wax ka weyn draagis qaar iibiyo lagu qabto ee maxkamadii markhaati iyadoo markaa ku cadaynayso xukunno ku rido. qaar waxaa dhici karta dagaal gala. marka waxaad noo sheegtaa dhibaatooyinka noocaasa inta ay leeyihiin iyo muxuu ahaa guud ahaan
waxyaalaha xukunka kalifa ee markaa xabsiga qofka ku dambeeya aakhirkii xabsi lagu xukuma. waad mahadsan tahay. dembiyada ee qofku galo inuu xabsi ku muteysto mana way fara badan yihiin, wayna noocyo badan yihiin. sometimes qofka waxaa laga yaabaa dembi aanu ku talagelin inuu xabsi ku muteysto oo inuu kale aysan ahayn. adoo dariiqa maraya waxaa laga yaabaa inuu qof dariiqa kugu yimaado uu ku fudooliyo, uu ku dulmiyo, dagaal meesha ka dhaco, qofkii wax idin kala gaaraan. waddankan haddii aad qof jirkiisa wax gaarsiisid oo ay soo bararto, macnaha waxaa weeye qodob waxaa ka yaallo ay ka kacayso dhowr sano. macnaha mogta macnaha waxa la yidhaha GBH waxa la yidhaha ayaa la isku xukumaa mataqan oo ah mataqan grave body harm, oo ayna qofka jirkiisa aada xogeysatay waxaa ka kacaya dhowr sano. marka arrin oo macnaha sometimes inaad dembi geshid, xabsi geshid, waxaa laga yaaba inay fududaato. marka aada loo taxadar, arrin u baahan waayo. markii usoo laabatid laakiin arrinta ilmaha Soomaalida ee xabsiyada ay ku galaan, inta aan la kulmay dembiyadu way noocyo badan yihiin, laakiin waxa ugu badan waa laba nooc. waxaa ugu badan mid oo ku yimaada ay faldambiyeedka xagga drugska ama daroogada oo la gado oo drug dealer la noqdo, iyo faldambiyeedka oo ku yimaada xagga tuuganimada qaybaheeda kala duwan. tuuganimada ayaa noocyo badan ay leedahay. waxaa ka mid ah waxa la yidhaahdo mataqaanaa robbery, oo ah inaa qof inta dariiq lagu istaago la joojiyo la dhaco. waxaa ka mid ah waxa la yidhahdo mataqaanaa burglary, oo ah inaad guryo u dhacdid oo qofku guryo jabsado. waxaa ka mid ah inuu qofku sameeyo waxa loo yaqaano mataqaanaa fraud, inuu wax isdaba mariyo oo lacago iyo waxyaabo aanu asagu xaq u lahayn u qaato, document inta foojariyeeyo ama mataqaanaa oo lacaga si aan sax ahayn u qaato. waxaa ka mid ah inuu sameeyo waxa loo yidhaha armed robbery, dhac hubaysan ayagoo qofka huboto inuu wax dhaco. marka tuuganimada faldambiyeedka ku yimaada iyo drugska ayaa ugu badan dhalinyarada Soomaaliyeed. inta badan dambiyada ay galaan xabsida ku jiro, khaasatan dhalinyarada maaha waddankan ku kurtay ama ayagoo yar la keenay ee xabsida ku jira. waana nasiib daro muslimiinta dalkan joogto markay imaato xagga dhalinyarada xabsiga cadada ku jirto, cidda ugu badan waa annaga Soomaalida waaye. muslimiinta dalkan degan waxaa loo qiyaasaa ilaa iyo 3 milyan. Soomaalidana waxaa lagu qiyaasaa qiyaastii 250 iyo wax kaaga dhadhow. marka 3 milyan oo muslimiinta ah boqolkiiba 3 kama aanan nihin annaga. marka adigoo marka boqolkiiba 3 ka yar tirada guud ee muslimiinta, xabsiyada qaarkood markaad tagtid Soomaalida waxaa average waxay ka yihiin qiyaastii boqolkiiba 20 cadadka tirada marka muslimiinta ah ee xabsiga ku jirta. muslimiintu guud ahaan ugu dhowdu marka la fiiriyo cadad ay ka yihiin bulshada guud ee waddankan UK iyo cadada xabsiga ugu jirto wax isu dhigma maaha. muslimiintu waxay ka yihiin boqolkiiba 3 wax ka yar bulshada guud ee degan dalka kan Britain. laakiin dadka ku jira xabsiga ama Britain populationka muslimiintu waxay ka yihiin wax ka badan boqolkiiba 12. waa cadad aada u fara badan. marka anagu arrintaa ku guda jirno baaxadda ay la eg tahay cadadka kuwa burgeriga ama dhaca suubiya iyo kuwa daraagiska lagu xukuma, kee markaa cadadkiisu uu celcelis ahaan uu badan yahay? horta inta badan manaha waxa la yidhahdo tuuganimada ama dhaca iyo daraagiska kalama fogaadaan. way isla xiriiraan. ilmaha qaar waxay ku sheegayaan marka inay kasoo bilaabeen robberyga ama mataqaanaa burglaryga ama noocyadaas xatooyada inay kasoo bilaabeen oo kala duwan faldambiyeedka, kadib ay u gudbeen drugska oo inuu wax soo xado, xoogaa lacag yar ka helo, lacagtii inuu isticmaalo, lacagtii uu dhadhamiyo, then xaggaa drugs u gudbo. qaarna waxaa laga yaabaa inay ka bilaabaan toos drugada. haddii drugs ka bilaabo marka drugs uu gadaya lacag uu sameyn, sometimes waxaa laga yaabaa kuwan uu la dhaqmaayo ama la tacaamulayo qudhow marka faldambiyeedkan oo xatooyada aan way galaan. marka inta badan macnaha way isdaba socdaan
uu waxaa arkaysaa sababtan waxaa naadir in qof weliga ana drugs un baan gadaayay laakiin tuuganimo ma gelin laakiin suuqa boominka ah oo badan way dhalinyaradu aada u galaan waktigan la joogo oo ay lacagdan ka sameeyaan caadi ahayn waa daroogada gartay marka meesha anagoo ku hakanina wax yar da-da ay ku bilaabaan ma da-day wax tusaalaha managa sii kartaa horta faldambiyeedku da-aha ay ku bilaabaan way kala duwan tahay waaya qaar horta waxaa laga yaabaa waddankana ku dhasheen qaar ayagoo aada u yaraa la keenay qaarna ayagoo roon baa la keenay marka ilmuhu marka badanaa horta wuxuu bareesha ka yimaadaa oo culays badan oo ka jira manaha markaan wareystay 200 oo ilmood ayaan interview ka qaaday ama wareystay mogta markaan weydiiyey wax ku kalif waxan wuxuu ku soo aroortay wax la yiraahdo poverty faqri mogta annagoon hadda aan u gelaynin weli marka da'da maxay ahayd way kala duwan marka inta badan wuxuu qaar wuxuu sheegay inuu ka bilaabay 10 sano 11 sano 12 sano 13 sano laakiin waxaa u badan da-da wix laga bilaabo 13 jir kor loo aado waayahay marka maxaad aada dhigi kartaa ma wiilal keliya ma gabdhaa ku jira noo cabir maadaama uu magaca dhalinyaro magaca guud yahay bal noo kala sheeg horta culeyskan ama dhibaatada weyn ay haysato dhalinyarada soomaaliyeed ilmaha soomaaliyeed macnaha kulligood wada haystaa laakiin faldambiyeedyada xabsiyada dadka ku jira wax u badan waa wiilish gabdha faldambiyedya kale way jiraan laakiin ma ahan wax la barbardhigi kara ama u dhawaan karo cadada wiilish laakiin cadadka gabdhaha ma jira tira ahaan fal dambiyeed daraagisa ama dagaal gabdhaha fiiri marka qaarkood waxaa laga yaabaa inay wiilisha waxaan sameynaya ay cilaaqaada leeyihiin saaxiib leeyihiin isku xiran yihiin ay lacag ka qaataan isla nool yihiin mogta laakiin macnaha inay ayaga faldambiyeedka ay sida wiilasha gacanta ugula jiraan ay gacanta ugula jiraan aada uma badna sababtoo ah haddii taa badnaan lahayd macnaha gabdhahan waxaa laga arki lahaa xabsiyada waa run gabdhaha xabsiyada kuma jiraan waa run macnaha gabdha Soomaaliya dumarka xabsiga ku jira Soomaaliya aada u yaryahay xagga wiilasha ay macnaha xabsi kasto ay yihiin groupka ugu ballaaran ee ku jiro okay aynu wax yar u korgalno qaabka ay u iibiyaan qaabka ay u shaqeeyaan waxaa jirta wax un haddii la iibinayo waa jumlo iyo tafaariikh ayaynu ognahay waxaa jirta meel lagu iibiyaa qaab loo iibiya waxyaalo fara badan waxaa jira arrintaas la xiriira iyagu ay khibrad fara badan u leeyihiin adiguna aada isdhihi karto wax badan aad maaragtay ka aragtay aad ka og tahay maxaa markaa aada wiilka ama gabadha ay isku da-da yihiin aanan iibinayn daraagiska iyo kan markaa iibinaya ee wadadana wada jooga maxaa lagu kala garan karaa mid horta waxa waaye waxyaabaha waxaan maxaa keena moogta iyo macnaha marka ilmahan ay arrimahan sameynayaan shaqadan si u socota horta culeyskan wuxuu ka yimid intiisa badan waa fashil caam ah oo bulshadeed oo nagu dhacay moogta oo macnaha qiyam iyo values iyo dhaqan iyo dadnimo wax badan oon luus garaynaa jiro markay imaato dragiska wuxuu noqday qayb ka mid ah macnaha hadda waddanka marka la joogo macnaha drug mataqaanaa waa area dhan oo booliiskeeda iyo shaqadeeda iyo hawladeeda laga qabto intelligencegeeda waana adduunyadu wuxuu ka yahay macnaha contraband haddana adduunyadu soo goosha marka waxaa ka shaqeeyo macnaha isku shabakad oo macnaha gaangis oo xoog badan ilmaha Soomaalidu dhowr sano ka hor waxay u badnaan jireen in ay tafaariiq gadaan dadka lagu keento ay u sii gadaan wax kala raadsadaan hadda hargeysa Soomaali macnaha ayaga jumlada gada tafaariiqna gada ilmaha waxyaabo ay sheegan waxa kamid ah waa in sidii loo shaqo tago shaqooyinka caadiga ay shaqo u galaan wuxuu galayaa 9 wuxuu ka baxayaa 4 waa shift for shift galaa wuxuu ka baxayaa 10 marka haddii shiftiga laba shift qofkii shaqeeyo wuxuu qaadanaya 100 baan ninkii laba shift shaqeeyo wuxuu qaadan 200 baan shiftiga waa 8 saacadood waa 8 saacadood oo shaqo ah way iibin mood wixii loo dhiibo uu iibin
mana khayaani kariyo mana inkiri kariyo hadday lacag ku dhuntane lacagtaas asaa laga rabaa maxaa markaa dhacayo haddii sometimes waxyaabaha iga sheegan waxaa ka mid ah marmar qaarkood waxaad maqlaysaa moogtahay ilmo waalidkood inuu ku yiri hooyo arrimahan ku jiraa haddii aan sheeg arrimahaasna waa lay dilaa marka inaa waddanka iga dhoofis markaas ma lacag fara badanaa ku luntay arrinta markay sidaa tahay ha macnaha sometimes dadku waxay u fahmaan qofkii daroogada gala kama bixi kariyo hadduu ka baxo waa la dilayaa sidaa daraaddeed waa inuu ku jiraa sheekada sidaa maa waayahay meeshan waa loo soo shaqo tagaa qofkan inuu shaqeeyo oo waxaan gado asaar rabo oo lacag inuu sameeyo ko markii sometimes waxaad arka lacag baa ku dhunta lacagtaa ku dhuntay ayaa waxaa la yidhaha ilaa lacagtaad aada soo gudbid ma tegaysid qaara waxay sameeyaan marka kuwa oo rooroon ilmo yaryar ee daroogada aa gadaayo caruurta yararkaa daroogada gadaayo ayay rabaan inay ku shaqaystaan oo lalaan ugu shaqeeyo waxay sameeyaan markuu daroogada maanta waa loo dhiibay shiftiga dhammaan rabo yaa madaxa loo soo xiran waxaa loo soo gashanayaa mataqaanaa baashi maskaraato then waxaa laga xoogaa lacagta iyo wixii uu hay isla qofkii usoo diray ayaa dhici karta inuu ka xoogo waayo hadda markuu imaan والله ما عليه لعبت سوري iyo درجس aawe markaasuu leeyahay waa laga xaday waa laga xoogay waa la dhacay way ana waxaas ma qaan dhicitaan ana alaabtii lacagtii intaas waa loo tuutaalay marka macallimka intaas oo maanta ana ku shaqeysid lacag laan moogta marka qofkaas saas ku xulugu leeyahay ama wax ku dhumaan ma tagi kariyo ilaa uu soo gudo gartay ma garatay marka dhacitaanka tuugnimada banaanka ka jira ku dheedo drug market ka jira drug dhexdu ka jira drug waa laga xoogaa qaarkood lacagta laga xoogaa kii wax laga dhacayne hadhow cid u soo dhiibto waxan way ka rabtaa maxaa aad u aragtaa dhalinyarada waalidka ku tiraahdo anigu nolosheeda halisi ku jirtaa waa in ma garanaysaa laga wadaa meesha ama lay badbaadiyaa marka arintan oo kala u sababad leedahay marka saas day jirto case noocaas ah jiro waayahay sidee markaa waalidka case-ka kaliya anagoo fiirinay case noocaas ah jiro oo waxaa jiro laga yaabaa in group drug gada uu sheegay oo booliiska ay qabteen markuu sheego waxaa laga yaabaa asiga in la qabto asoo baashi iibinaya oo la arko moogtahay canug iska yaro waxaan loo soo dhiibay inuu yahay marka dabcan waxaa jirto markaas silsilad ku xiran canugan oo usoo dhiibta arrintan haddii marka booliiska markay qabtaan uu yidhahdo waxaa isoo dhiibay ninkaas iyo meeshaasuu joogo meesha joogo ee lasoo qabto kan uu tilmaamay wuxuu sii leeyahay marka saaxiibo kale iyo asxaabu ku xiran haddii kaa la xiro qolooyinkii kalaa marka waxay soo dirayaan handadaad oo gudulayna okay marka xitaa haddii marka mid drug lagu qabto kuwa kale ma sheego maxaa markaa waalidkaad kula talan lahayd maxaad kula talan lahayd horta fiiri arrintaas markay imaato macnaha uu canug ay ku timaado waxa la yidhaahdo mataqaanaa threat oo degdega ama waxaan la yidhaahdo hanjabaad macnaha toos waa inuu qofka booliiska ko markuu u report gareeyo ay booliiska marka waxay siin doonaan marka talo iyo tusaale iyo dariiqi iyo xilmar laha iyo xabka iyo si la sameyn lahaa okay haddii ay xitaa laga maarmaan noqon weyso waxaa laga rarayaa xaafadda macnaha haddii ay arrintareed ay tahay oona aan laga hortegi karin ay booliiska ay mana xaqiiqsadaan mana qoyskaas waxaa laga bedelayaa guriga waxaa laga yaabaa geeska magaalada geeska in la geeyo oo in magaalo kale la geeyo oo aan laga aqoonin wiilkan la yidhaahdo macnaha magaalada noocaas iyo xaafadda noocaas iyo ereas ha tegin maxaa u sababa yacni iskama dhalato barnaamij waxbuu dabada ku hayaa criminalka ama dhaca ama draagiska inuu qofka gado waxaa dhici karta waxale ayaa u sababa bulshada gudaheeda guriga gudihiisa iskuulka kasoo qaad inay sabab u tahay wiilkii ama gabadhii ku feelgarooday waxaa dhici karta waxyaalo badan ayaa u sabab noqon kara maxaa isku kaa soo aruuray oo aada isdhihi kartaa si guud adoo markaa taabanayo dul marayo
horta arrimuhu oo waxyaabaha ku kalifay caruurtan inay drug marketka galaan ama drug iibiyaan ama dhac ay sameeyaan marka adiga su-aal weydiiso waxay kusoo koobeen waxaa la yidhahdo waxaa sabab u ah faqriga. dhanka kale markaa fiirisid ummadaha arrimaha u badan sida dadka madowga ahay America degan, madowga Ingiriiska degan, dadka Irishka la yiraahdo manaha dadyoga dabaqada hoos oo dhan ahay oo nolosha mataqaana ay systemka manaha aad ugu fail garoobay oo aan awoodin markaasi in ay nolosha la qabsadaan dhibaatada dhan ayaa horta ku dhacdo يعني فاميلا قاس wadamada ka soo jeedi kara ayaa ku dhacday mugta waxa kale ayaan qayb muhiim ka ah Soomaaliya waxa ku dhacay waxa la yiraahdo burburkii ee burburtay dawladdeedii iyo dawladda dhexe iyo qaranimada Soomaaliyeed iyo karaamadii iyo sharaftii Soomaaliyeed waxa burburay sharaftii iyo karaamada qofka Soomaaliga uu ku lahaan lahaa caalamka oo dhan ilmaha markay waxay korayaan waqti qofka Soomaaliga uu yahay qaxooti uu yahay Mooryaan uu yahay burcadbadeed uu yahay argagixiso uu yahay qaxooti uu yahay nin gaajo u dhimanay ayadana meesha ka baxay oo burburay waxa la oran jiray Soomaalinimada identity-ga Soomaalinimada ayaa meesha ka baxay identity Soomaalinimo ah oo la abuuray ma jirto bal waa la sii qeybiyay oo la sii sarrifay taa marka waxay keentay canugani marka wax uu ku faano uu adduunyada kale ku tartamo ma hayo waxay ka dhashay marka canug inuu moral inay ahaan marka qofka qof u dumo mana ummad ahaan waa dunsanahay marka dumitaanka aan u dunay ummad ahaan moral inay ahaan mar qofku waxay keenay marka ma maqli jirtay waxaas rab waxa dhooramay rab dhagaxay soo daaday mana waxa ay dhiman ma laha walaaskan faqriga oo aydan waa factor rab suna oo jiro average guriga Soomaalida 5 6 7 carruur joogto markii ka hadlayna Yurub markii ilmahaasi markii waalidiinta Soomaalidu inta badan waxaa loo baahan aan shaqeynin ama ka shaqeey shaqooyin aan xirfado badnayn xirfad aan manaha ay waxa ka soo galay qofku ay aad u yartahay aan laga dabooli karin baahida carruurta waxaa sii dheer culayska ka jira dalkii oo qof kasta oo dibadda jooga waa inuu dalkii dad jooga oo ehelkiisa u masruufa marka income guri soo galayo yar labo gudaha la saga dhagan yahay ummadii dalka aan la qabsanin oo waalidku qudhiisu iyo cidda ilmahan u noqon lahayd mataqaana role model ama ku dayn lahaayeen oo asaga aan ba noloshii iyo waqtiga aan la qabsan karin oo wadankan iyo adduunyada moota ilmihii haysan cid ku daydaan marka aan ka dhaxgalay raaliya faqri marka tiraahdo wadanka aan joogno waa UK waa Europe dad badan oo waxa jira hadda TV-ga naga daawanaya fiisooyin lacag fara badan ka bixiya sida Europe ku soo gali lahaayeen iyo marka aad tiraahdo eragan faqri waxa moodaa inaysan isqaadan karin marka faqriga wiilka ama gabadha Soomaaliyeed ee Europe jooga ama UK jooga faqriga ay ku sugan yihiin ee kalifi kara in ay galaan dhac ama ay drugs iibiyaan noocuu yahay fiiri waa wax iska sahal waay manaha marka la fiiriyo average-ka ama qiyaasta guryaha Soomaalida income-ka soo gala aad u yar income-kaas marka noloshii guriga ee qutul yoonka marka laga bixiyo baahida ilmaha u baahan yihiin oo dharka ay xiranayaan oo fucud xiran yahay kabaha oo fucud xiran yahay waalidku ma awoodaan inay iibiyaan ilmayoga kale marka ilmaha soo koraan manaha sports mataqaana different sport activities in naadiyo iyo mataqaana ay xubno ka yihiin oo sanadkii lacag lagu bixiyaa iyo bishii waalidku ma awoodi karo inuu sameeyo ilmuhu waxay u baahan yihiin waxbarashada iskuulka kale kuma filno in laga bixiyo wax la yiraahdo tuition fee marka waalid hay 10 carruur ah ma awood inuu ka bixiyo guri ay dhowr 10 qof joogto inta kuma filna ilmihi meel wax ku akhrisan waxbarashadii ma jirto marka tusaale canug wuxuu iga sheekay wuxuu yiri iskuulka markaan aado waxaa la siyaa buu yiri family in badan kamid familiyadeena marka waxay qaataan ceyrta ay dawladda lacagta ay bixiso ceyrta la yiraahdo ama income support lacagta marka cidii reerkii qaata iskuulka cuntadiisu dawladda ka bixiso free marka dugsiga hoose dhexe primary la joogo dhib ma laha laakiin dugsiga sare marka la gaaro kaar la siinay qofka waalidkii shaqeeyo oo lacagta la baxay kaar gooni u leeyahay
kan ceyrtana kaar gooniyo leh oo yacni kala midaba la kala garan karo. ha oo meesha cuntada looga soo qaadanaya Haye. second ilmuhu xataa way iswareysanayaan aada la isu wareysaa way og yihiin mogta qofka waalidkii shaqeyn canuga soomaaliga marka inuu kaarka qaato cunto qaato ka xishooda qaar marka waxay sameeyaan ayagoo cunto cunay ka soo noqonaa iskuulka wuxuu ugu yiri marka hooyadii waxay leedahay buu yiri baamkan qaado biyo ku cab hal baam hal shilin waa raashin cunto oo iskuulka taalo firigaan cun okay wuxuu canuga oo hindiga ah amaba meelaha kale ka yimid oo isugalaadka nahay markii meesha la isugu yimaado breega oo cuntada laga cuno wuxuu la soo baxayaa buu 20 shilin 20 pound 10 pound ana hal pound baan wadaa marka wuxuu dareemay xiro ceebo fadaxada marka waxaan ka fikiraa marka aniga sidee marka ninkaan facay wuxuu helaa ku heli karaa waa meelaha ay ka bilaabanayso dhaca iyo inuu lacag sabab da isku jiro inuu lacag soo marka qaadkaas ayaa marka hor suuqa bilaabay agale ayaga marka maxay sameeyaan marka ilmo kale soo dabayaan qaar waalid badan oo dadaalaa jiro kii dadaalay marka maadaama uu suuqu sumaysan yahay ilmahana qaraaba leeyahay darisa leeyahay Soomaaliya leeyahay marka meel lagu kala fakan karo xaafada la degan yahay kuwana kiirona kuwana barti gil waxa kale jirto moogta concept dhahayso hadii manaha marka laga hadlayo arrimahan crime-ka iyo siyaabaha la isu saameeyo hadii anug xabsi uu galo anuga xabsiga galay ilmihii la dhashay ama saaxiibadiis ah inay xabsi galaan ayagoo waxba sameynin probability ama qiyaasta waa 100% يعني waxay moodaa in la isku daaranayo okay ana waa sidii halka la isku daaranayo amal way hadii anu xabsi galo anugaas wixii ku hareeraysan ayagoo wali faldambiyeed gil inay xabsi galaan rajadoodu waa 100% marka already marka 100% in aad entitled u tahay xabsi gashid adoo batalaab qaadin waa garan kartaa ana xabsi waan ku arkay 4 islaad waan ku arkay 3 islaad waan ku arkay 2 islaad waan ku arkay intaas maadeer waan ku arkay moogtay waxaa kale ma jira u sababa lacag yarida faqranimada ka sokow waxaa kale ma jira u sababa inay drugs ka iibiyaan for example in magaalada qaybta meesha ka degan yihiin xaafada ay ku badan yihiin dhalinyarada drugs ka iibisa ay saaxiibadooda ay markaa si fudud ku daartaan sida hadda waxaan daqar ahayn buu la isku daartaa leeyahay taa ma rabta inaad ka hadasho xaafadaha qaarkood ma warun macnaha aydan waxay kamid tahay factor aydan ugu muhiimsan ama qaybta ugu muhiimsan ay kamid tahay waayo anug ilmaha oo lukoray hadda qaar badan oo xaafadaha oo madowga degan yihiin kamid xaafadaha hadda la yiraahdo Harlesden, Neasden, Willesden oo ku yaala North West mataqaanaa London, Wembley area ku yaala xaafada Hackney dhanka east-ka ku taala Woolwich South East-ka ilaa Croydon soonaha soo dhan maaragtay waxa weeye carruurtu waxay ku sheegeen waxaan la koreynaa dhalinyarada madowga ana meesha kaliya oo u ah mataqaanaa income sources ama wax ka soo galaan ugu badan khaasatan wiilasha waa drugska madowga markaad tiraahdo tabcan ma aha madowga oo dhan waa madowga waxaan ula jeedaa qolooyinkan waxaa runta madowga dhan ma aha waa madowgan ka yimid meesha la yiraahdo Caribbean-ka ayagana waxa waaye madowgaas intuu badan asalkooda hore wadanka waxay ku yimideen qaab ahayd adoonsiga slavery ku yimid oo saa ku tarmay waay dadkaas marka waxay dhumiyeen marka waxa la yiraahdo identity marka hadda dariiq meel daafis waa arkaysaa wuxuu kale maxay fiirinay عقدو قبا ضد نمدي شرفتي إكرامتي عزيز مدوق أفريقيا كيم waa ka duwan waa dad sharaf oo broad oo slowing mode anaga marka qolooyinkaas oo identity class ku dhacay ayaa hadda khaanad la galan bal waxyaaba iga nixiyay waxa kamid ah ilmaha Soomaaliyeed ii sheegeen hore midka Jamaicanka hadii la xukumo oo la 2 years lagu xukumay madaxu qabsanayo oyna laakiin anaga Soomaaliyeed 10 sano lagu xukumo qosla wax ay la tahay male waa arin marwale aan u gudubno marka barnaamijka qaybtiisa xalka la faldambeedka qof uu galay markuu galo hadii uu markii xukunka lagu dhaco oo qofkan uu oynayo ka qoomeynay maragtay macnaha waxa ku jirta qofkaas wali ruuxiyad
iyo shakhsiyadeed moogta shakhsiyadnimo ku jirto uu nool yahay inuu macnaha ahaado qof bal dunidan inuu ku noolaado oo nolol iyo wax ka qabsada rabo laakiin qofka markaan waxna kala jeclayn macnaha mid arrinta uu khatarta badan tan waaye qofka inaanu kala jeclaanin samaha iyo xumaanta waxa kalena ma keenayo markii qofkani cid meesha uu ku abtirsanayo cid uu abtirsanayo waa Soomaali Soomaali meesha maanta waxaa la soo warin waxaan xasuustaa waagad abaarihii dhaceen dhowr bil ka hor waxaa la yidhi within a week ayaa waxaa dhimatay 60,000 caruur Soomaali gaajo u dhimatay moogta waxaa lagu leeyahay intaasa everyday badda ku daadinaysa oo ku baabi'aysa intaas ayaa dagaalo ku hoobanaysa intaas ayaa qarax ku dhimanaysa qofka marka newska uu helayo iyo waaqac uu ku nool yahay mentally ayaa waxay keenaysaa marka qofkani macnaha waxay ka dhumisay bini aadamnimadii oo dhan ayaa siibmayso qofkani marka wuxuuna kala jeclaynba marka waxaa gaarin marka ay isaga darsanto dadka wanaaga iyo xumaanta sharafta iyo sharaf darrada aanu kala jeclayn anugani marka waxaa arkaysa qaar waxaa xabsiga baxay usbuuc kale soo noqday xukunka u dhamaaday xabsiga ka baxay next week oo soo laabtay xukun kale ku dhacay haddana ku soo noqday fardamiyada kale oo soo laabtay waayahay cabdullaahi waxaan rabaa inaan ku weydiiyo aan xalka u gudubno طبعا in badan waad ku fikiraysay waxaala fikrado kala duwan aad xal u aragto inaad bulshada u soo gudbiso maadaama aad arimahan 6 sano aad ku jirto marka aan dib u soo noqono da'da ay ku jiraan aan u soo noqono 13 jir marka ay ku bilaabayaan oo kale inta ka hor طبعا 10 jir ayaa waxaad moodaa inay qabasho leedahay intuu 13 sano uusan fikirkii crime-ka iyo uusan u leexan ama wiilka ama gabadha iyo arinta tan faqrinimada iyo arinta tan ma garanaysaa shakhsiyadda dhalinyarada ay aad u liidato identity-giisa ama shakhsiyadiisa aad leedahay meel ku daysado ma laha aabihii ma shaqeeyo family-kii waa lacagta soo gasho way yar tahay waxaalahaasoo idil aad moodo inay adag tahay si ay uga leexdaan sidee arimahaas tilaabada koowaad iyo tilaabada labaad ee looga bixi karo marka tala ahaan waad mahadsan tahay waa run waaye arrintan horta waxaa waaye quick mataqaana fix in loo helo arrin aan sahlanayn waaye oo xal macnaha hal mar aad samayn kartid ma jiro laakiin waxyaaba badan waxaa jiro wax laga qaban karo waxaa ugu muhiimsan koow baraarugga horta maanta waxaa aad wax loogu farxa ah dhowr sano markaan hadda gadaal fiiriyo iyo maanta baraarugga waalidka Soomaalidu meesha uu joogay dhowr sano kor maanta ma joogo masha Allah khaasatan hooyooyinka hooyooyinka Soomaalidu macnaha waxay sameeyeen shaqo aanan caadi ahayn dadaal aan caadi ahayn bixiyaan inta badbaadina waxay ku badbaadeen waa ayaga aabayaasha ma marka waxaad leedahay fashalka aabayaasha ka yimid daliil wax ku ah wiilasha xabsiga ku badan yihiin laakiin gabdhaha xabsiga kuma badna gabdhaha waxaa rol model oo hooyada marka hooyadu maar kasta way taagantaa ama cunto u kariso shopping aad iskuulka geyso jibiga geyso way taagantaa Cabdullaahi adoo raaliya waxaan xasuustaa xabsiga maalintii aan ku raacay wiilashii aan wareystay waxay sheegeen in guriga uusan aaba joogin in guri aaba jooga inaysan ku soo korin war soo baxay usbuuc hadda ahay wuxuu sheegay 72,000 families oo macnaha study ama report la diyaariyay waaye rabshadii ka dhacay London sanad ka hor oo magaalada rogay 72,000 kaas hal kulligood waa family aanu joogin father figure aabba aan joogin waa 72,000 oo qoys oo hooyo koraysa aan aabba guriga aabba joogin ama qof oo rag oo ay ku daydaan wiilish waa hooyo koraysa 72,000 waxa dhawaatada geysanayay hadda ama mataqaan bilaqad wadan ka dhacisay oo writers loo bixiyay qaswadayaashii waxay ahaayeen wiilal ee badan amoota wiilish hogaaminaya marka wiilashaasi aabba iyo meel oo ku daydaan ma joogin aan u soo noqono marka la fiiriyo marka horta hooyooyinka marka baraarugga waalidku horta waa number 1 way ko waxaa muhiim ayadana kow ilmuhu in lagu fakiro inaan waxbarashada aan ku fashilmin in lagu dadaalo in waxbarashada marka uu ku fashilmin marka waxyaaba kala sii ratibmaayo ayadana okay waxaa ka ratibmaayo
waxbarashada fiiri haddii xaafada aan degayno waa in laga fiirsado ma anaga fiiri wadankan waan degannahay muwaadiniinaan ka nahay waan deganaan doonaa waana joogi doonaa soomaalidu waa inay ka fikirto horta sidii guryo ayaga ay leeyihiin ku heli lahaayeen guryo ay heli lahaayeen in laga fikiro waa la samayn karaa ummadihii naga wada dambeeyeen dhan guryo iibsadeen manaha carabaha eeshiyan kulli waagtaa muslimiinta dhaqalan ama mortgage caadiga ha galaan oo culum badan ay fadwoodeen ama xalaal mortgage oo sistemyo kale waxbaa jira waxba dhib baa ka daran wadanka waa deganaan doonaa guryaha marka social housing la yirahda oo stateyada ku yaalo oo dowladdu leedahay la degan yahay xaafadaha guryahaas marka inta badan waxaa degan 99% waxaa degan dadka low income-ka ah inta badan ay dowladda caawiso aada degan marka meeshaas inaad deganaatid dadaalka soo bixisid riskigeeda aada u sareeya waa halis weyn in ilmaha ay badbaadaan waa aada u adagta taas waa xal ka mida ka fiirsan malaha mogta marka adiga magaalooyin yar waxaa jiro London ku dhegan oo u jiro London geeskeeda kale ah waxay taa xaafadaha qaar London ka dhow hadaa magaalada ay kaaga xiranta hadaa tagtid crime lagama yaqaan ilmo diraysaa lagama yaqaan ilmo Soomaali ma kala duufsanaa male deegaanada xaafadaha la degaayo isteejyada waxaa kaloo muhiima waxbarashada ilmaha marka iskuulka bilaabo in lagu bilaabo caawin iyo la socosho ilmo kasta wadankan galaas kasta oo waxbarasho ilmaha wadankan lama dhaco laakiin ilmo kasta isku galaasa waxaa laga halka galaas inay 5 qayb iyo 6 qayb ay leeyihiin high group middle group low group mataqaana second higher mataqaana kii sare kii ku xigay kii hoose oo mid ka uu sab si leeyahay ayaa macquula marka qeybka oo kasii hooseeya jiraan canuga ma dhacay marka waa u tahay marka canugaada laga bilaabo year 1 oo bilaabo waxbarashadiisa levelka taaganta okay laba marka canuga waxbarashadiisa aad ku hubsatid waxbarashada uu ku fiican yahay oo dadaalayo in haddana aad gacanta isla markaas aad ka fikirtid in activities kale oo sports ah sports marka anaga la yiraahdo waxa laga yaabaa in just loo qaado aniga inta baag la geeyay in la soo in waalidka aabaha ay la soo cayaaraan soo dhidaan waxa sports activities ma ana professional youth football clubs ay jiro moogta oo ilmaha tababaraya team u sameynay haddana member uga dhigtid anigu wuxuu baranaa sports is loo cayaaro haduu markuu soo roonado marka sports kaas ku tanaana laakiin haddii uu taa baran waayo markuu anigu soo roonado haduu booni ma cayaar yaqaan markuu meesha uu qosla taabadka maxaa dariiqo taagnaana marka okay waxa kale ay muhiim ah aabahay waa inay shaqeeyaan aabahay hooyadu waa inay shaqeeyaan waa inay jiraan ilmuhu waxay ku daydaan xitaa farma ka suko waa arka hooyadu dadaal soo shaqeynayso aabba dadaal oo shaqeynaa waxyaabada ajiibka ugu noqdo ilmo badan Soomaali arkay inay shaqeeyaan mar rabaan sababtoo wax kale maaha baba arkay markuu shaqeynaa weligood amoogta waalidku inuu role model fiican noqdo waalidku inay wax bartaan luqada bartaan ilmaha anigu turjun ah oo laga baxo in shaqo in la raadiyo ay nooca ahaato marka arinta waxaad leedahay way saameynaysaa faqriga kalifa inuu wiilka ama gabadha dhalinyarada daraayiis xitaa aabaha duu shaqeeyo aaba kale duu shaqeynayo walaaskaas in la dabo aad u adkaanay marka lacagta ay for example waxaa tiri 1 baan wataa ka kala 10 baan wataa ugu yaraan maxaa marka meeshaas aad dhihi kartaa waalidka maantana daawanayo maxaa tala siin kartaa waalidku fiiri ana mid waa ogahay anaga Soomaalidu waa run mana xaaladda dhaqaale way aad oo culus uga jira bakom dhawata wadankii dhawata culus baa ka taagan culturally manaha waxay badan laakiin hadda dadaalka iyo moralku waa in la dadaalaa in badan hadda kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo aad u dadaashaa jirto GCSE had Soomaalida in la sugu faana imaatay dugsiga sare marka laga baxayo arrin aad u fiican waaye jaamacadaha tubka dhalin badan Soomaali hadda aa gasho isbitaalka hadda nurse badan Soomaali arkaysa hoo arki jirin moogta ma sha Allah marka dadaalkaas waa aad ugu farxo mid kale idin muhiimka waxay tahay naga maqan in as community soo aroorino oo noqono dad community ah oo dan ka dhacay dhalinyarada xoog oo ummadka soo waa xoog waa dhalinyarada umad kala isticmaalo taasina kuma jiraan Cabdullaahi adoo raali waqti oo nagu yar aawi ayaan waxaan jeclahay inaan ku soo gabagabayno
hawsha aada qabato waxaad tabcan aada u qabanayso waa ajir ilaahay inuu kaas aada daawo fiirsan weysay dhibaatada markaa dhalinyarada ay ku jiraan. maxaa markaa aada usoo jeedinaysaa waalidiinta qaarkii ama bulshada guud ahaan sida inay ma garanaysaa xabsiga oo kale dhalinyarada ugu tagaan, waaniyaan, soo booqdaan, ilan xabsi ku jiro beriwi magaalada iman, maxaa jeceshahay inuu noqdo? horta waa mahadsantahay. markii aan bilaw waxay ahayd macluumaad warar baa igu soo gaaray xabsiga ilmaha Soomaalida saan waay kan waay saan baa lagu sameeyay saan tahay kan ay tahay. waxaan goostay marka aniga inaan xabsiga aan warqad ana u qoray, ana la xiriiray inaan idinla shaqeeyo, inaan caawin rabaa volunteer shuruud laan. aad u soo dhaweeyeen, training aan maray, security clearance aan maray, test xabsiga la siiyay, key holder xabsiga aan ahay, saacadda raba xabsiga aan tagaya, 6 sano la joogaa. من قف سومالي أو سومر وأنت اللي جو ما يصدقن سنة تحتاج كسور نقطة مدعن ما شاء الله إنه يقولوا قف سومالي أو صوب أقرب هين ولي مدعن بقول جديد وحياة إن بل عن أبونا أنا جاي أنت صحابتي ده محن قبل كنا حبس كمان كمان بلا بين لما كمان قالوا بدنا ما كان في هذا لما كمان حافظ مرة إن البعض مهم إن المعلومات تري مهم الحمد لله قابل حقوق جوري سنة حبس إن الدب وقران نقبل قاعد وأنا سوقل markaan dariiq maanta isku aragno ugu soo booday anaha marka waxa qof caawisay oo ilaahay wixii ka baaratay wax lagu furo. marka waxyaabaha anaga noo aad u baahan waxa kamid ah inaan helno dad na raaca oo waqtigooda wax ka hora hooyo aabo akasoo loo baahan yahay. waayahay waxaan jeclahay inaan Cabdulaahi aad nasiiso meel lagala soo xiriiro telefoonka iyo email insha Allah waan reebi doonaa. waan soo dhaweynaynaa insha Allah tacaala arig qofka soo ardaas jecel gacan ka geysto siyaabo kala duwan ayaan gacan loo geysan karaa. waayahay waa mahadsantahay Cabdulaahi barakaad. daawadayaal idinkuna waa mahadsantihiin inta aad barnaamijka aad nala socoteen. waxaa halkan noogu dhamaaday barnaamijkii Talo iyo Tusaale. waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.